بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله. waa markii kale ama mar labaadkii iyo cashirkii loogu talagalay dhaqaatiirta ama cashirka loogu talagalay daandistaha. waana markii labaad oo introductionka lagu soo celiyo. si fiican hal mar u dhageysta. nano Beckis softwareka la yiraahdo waxaa kaliya isticmaali karo kuwa ka shaqeeya ama dhaqaatiirta baaritaanka ku sameeya afka, waayo dhaqaatiirta ku sameysa baaritaanka afka waxay u isticmaali karaan kaamirada afka la geliyo oo halkaasna soo duubeyso. waxaana kaliya laga heli karaa in la helo qalabka lasoo iibsado. softwareka wuu la socdaa soo falaasha. cashirkan waxaan kala socon karnaa bilow ilaa dhammaad cashirada dhaqaatiirta. pagekan ayaa soo geli karnaa ama groupkan aan join kusoo noqon karnaa English Somali Star Online. haddii groupkan aan kusoo xirannahay oo marayo groupkan wuxuu sii barayaa 4.7k members baa ku jira. haddii aad groupkan ku jirto cashirkaas si fudud baa ku heleysaa ama youtube-ka Somali Star Online ayaa kala socon doontaa. waana muhiim jiddan. waxaanu ka hadlayno ma ahan cashiradii caadiga qeybaha ICT-ga oo aan ugu talagalnay ardayda inay bartaan. cashirkan wuxuu quseynayaa dhaqaatiirta ilkaha quseysa ama dhaqaatiirta ka shaqeysa daandiistayaasha ayaa lagu talagalay kaliya. ayaga ayaana qaadan doona halka ka faa'iideysan doono. waana softwareka waa diyaar. qof walba oo cilad ay kusoo noqotana lambarkeena halkaasuu ku qoran yahay. tixraac halkaasaa naga soo raacaysa. nambarkeena halkaasa kala soo xiriiri doontaan ama facebooka fariin noogu reebi kartaan ama youtube-ka commentiga fariin noogu reebi kartaan. halkaasa kasoo tixraacis kasoo sameyn kartaan. softwareka magaciisu waa nanofix softwarekan macnihiisu wuxuu u taagan yahay waa daandiistayaasha ayaa ku shaqeysanaya. nanofix setup big setup. marka softwarekan wuxuu fududeynayaa in afkii aa baaritaan ku sameyneysid qofka aa baaritaan ku sameyneysid afkiisa kaamirad yar oo caaga ayaa gelineysaa oo kaliya, kadibna halkan ayaa sheegayso. laakiin wuxuu wataa xarig USB ah computerka la gelinayo. softwareka marka sidee loogu duubaa ama sidee loogu duubi karaa softwarekaas oo u baahan inaan cashirka koowaad ka bilowno, kadibna sida loo isticmaalo oo baaritaanada loogu sameynayo aan arki doonaa. waana very important taasi. softwarada laga faa'iideysto waxaa qeyb ka ah kuwa dhaqaatiirta ay isticmaalaan iyo waxaa isticmaala xirfadleyda kala duwan. marka kan waxaa loogu talagalay dhaqaatiirta oo kaliya. nanofix setup waa ku duubayaa run waa doortay. mar haddaan doorto wuxuu iisoo qorayaa sidan. okay yes baan leeyahay ogolahay. markaan yes qoro wuxuu soo qorayaa welcome kusoo dhawow. eligtina way saaran tahay to nanofix. ma ku duubeysaa? waan ku duubayaa maydhi. si dhaqso ayaa ugu duubayaa. ila soco. daaqadan ayuu horkeenayaa. markaan ku duubayo CD haddaan wato ama DVD hadduu ku yimaado ama flash buu ku yimaada intiisa badan waxaa gelineysaa dhakhtarka lala hadlayaa ama qofka ka shaqeynaya daandiistaha wuxuu gelin doonaa USB-ga computerku gelin doonaa USB-ga. markuu USB-ga computerka geliyo softwareka duubistiisa ayuu bilaabayaa. softwareka markuu ku duubo softwareka aad ku duubtayna waa wadaysaa. halkaan marka ku keeno halkaan waa drive-ka ku duub. marka extract baa leedahay saas duubayo wadayo. marka halkaan welcome to device drive installation wizard ma ogoshahay buu ku leeyahay. sawiradaana wuu ku tusayaa markaa wax ku duubeysaan. sawirka kan waa USB-ga xarigaana galayo wax ku duubeysid. ila soco markaa step step ayaa ula socon doontaa. xarigan magaciisana waa Ultra X. halkaas si fiican uga faa'iideysta idinkoo stepska arki doona. qalabka lagaa soo iibinayo waa qalabkan oo wireless-kan ku shaqeynayo. qalabkan markaa computerka ku duubeysana softwareka sidaas wadadaasaa maraysaan. Ultra X-kaana waa kaa ku baaraysay iligaa dul saaraysay. halkaa saa uga faa'iideyso. marka halkan waxaa imaadaa marka halkaa joogto welcome to
to the device drive installation wizard. Next baa dhahaya horaa u soconaa accept waa ogolaanaya agreementiga qoraalkana ogolaanaya. haddii aan dhaho I don't accept this agreement ma ogoli qoraalkan waa ka haraysaa. daabacaadin way kula socotaa waa printer garayn kartaa marka waa sii daabacan kartaa soo waraqaa oo qofka ereyga laga haya ayaa usii daabacaysa ama afka laga hayo. marka I accept this agreement waan ogolaaday. next wuu ku duubmayaa marka finish baa dhahaya. xarigii USB ku jiray baa marka aan arkayaa kan uu ku duuban yahay already. xarigan halkaan soo gelinayaa marka shaqadii ayaa qabsoomayso. marka shaqada waxay ku qabsoomi kartaa inaad bilowdid ama aad samaysid bukaanka kuu joogo ama dadka xanuunsan oo kuu joogo aad kaamirada ku xiriirisid. kaamirada markaa ku xiriirisid halkan waa inaad ka arkaysaa. halkan waxaa u arki kartaa adoo kaamirada halkaas ku xiriiriya. halkan wuxuu kugu yiri marka softwareka installation completely waa dhameeyay. softwareka duubistid softwareka waxaa lagu duubi karaa computerka waa inuu ku jiraa Windows 64 bit ama waa inuu ku jiraa Windows ku jira 32 bit labadaas ayuu qaadanayaa. si fiican ila soco start baa dhahaya marka. okay halkan waxaa soo dhamaystirmay qaybtii ahayd inaan ku duubno ku shubno. qaybta kale waxay bilaabanaysaa in raajadii la sameeyo. waa raajadii baa la sameynayaa. softwarekan wuxuu u shaqeeyaa marka raajada ilkaha. dhakhtarka raajada ilkaha ayuu la shaqeeyaa. dhakhtarka kale softwareradooda ayaga waa gooni dhaqaatiirta kale kan laakiin waa qaabkaas aan ku sheegaya haddeer. qaabkaasuuna u duubmayaa. qaabka markuu u duubmo USB-gii wuxuu ku xiriirsan yahay computerkii. raajadii aad dadka afka kaga qaadaysa ama afka ka saaraysana waxaa gelinaysaa qofka afkiisii. la socotaasi marka steps kala duwan ayaan ka faa'iideysan doonaa. cashirkan marka cashir wuxuu ahaa loogu talagalay dhaqaatiirta ama dadka loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan ku shaqeynaya daandistaha. step baan u arki doonaa. kuwa kale cashirkoodii waa soo gudageli doonaa wuuna bilaabanaya cashirkan. marka halkaan marka folderkaas samaysanaya saanu kusoo baxaya. marka nano fix baa la dhahaa softwareka. marka open baa dhahaysa. hadduu furmi waayo maxay tahay cilada marka waa fiirinaysaa softwareka meesha uu fadhiya. halkan ayaa imaanaysaa waa tijaabinaysaa softwarekan fadhigiisa ayaad fiirinaysaa. ogolaanshihiisii ayaan fiirin doonaa. halkaa marka waa qaadaysaa waa soo durjinaysaa. okay baa dhahaysa. low hadduu yahay kor baa u qaadaysaa ama hoos. taas waa wada fahanay oo softwareradoo dhan bay qusaysaa. kan marka isticmaalkiisii waxay ku xiran tahay USB-ga inuu kuu diyaarsan yahay. computerka gelinaysaa USB-ga mar alla markaa geliso aad furto oo soo qabsanaya. stepka inaan fahanay baan filayaa waana muhiim jiddan taas inaan la wada soconno. show details baa dhahaysa saasuu kuu tusayaa. waa fiirinaysaa halkaasaa iska arkaysaa. halkan marka cilada ku haysataa maxay tahay marka ciladan sidee u sixi karnaa waa taasaa aada muhiim u ah. this certificate is indeed for the following purpose. saa markii kuu soo qormato detailskii baad dooranaysaa. detailska markaad doorto waa arkaysaa certificateyadii all. halkan waa ka baxaysaa marka ogolaansho haddaa ka weysay halkan aa imaanaysaa. halkan markaa imaado run baa ku qoraysaa. run markaa qortid run baa imaanaysaa. run markaa imaado halkan waxaa imaanaysaa services dot mar alla markaa qortid services qor services dot msc inter aa dhahaysaa. adeega fadhiga meesha ay wax fadhiyaan waa halkan meesha laga rabo local services. adeegan haddii wax kuu shaqeyn waayaan halkaas services baa soo qoraysaa dot msc. softwareka aad rabtid marka halkan dul saaran yahay. hadduu shaqeynayana waan arkaynaa hadduu shaqeyn waayana waan arkaynaa. okay marka meesha aan noo shaqeynayn ama programka aan noo shaqeynayn halkaan ka baarayna marka why is u shaqeynin why ay u shaqeeyeen waa su-aal kale oo cashiro kale ayaan ku baran doonaa. halkaan marka waxaan baaraynaa softwarada disableka ah iyo kuwa enableka ah oo ah defaultiga. kuwana uu kusoo degaa waa default. kuwa lagu shubo haddii ay shaqeyn waayaan ase manual ay yihiin waa ka deyninaa waxaan ka dhigaynaa automatic inay ku shaqeeyaan. okay
halkaa waa baareenaa marka all serviceskeena soo shaqeynayo aka all serviceskeeni halkaana ka fiirinaynaa applicationka waan providerski halkaa right click start waan dhahayaa halkaana uu start gareynayaa application walba oo aan u baahdo oo aan shaqeynin dhaqdhaqaaqiisii start waan dhahayaa waxaan soo galay services waxaan kaloo soo galay services.msc inta markaa idhaahdo halkaan ay ku keenaysaa local services adeega computerka soo u shaqeeyo adeegyadani sidee way u shaqeeyaan hadday waxaan soo aragnay meeshii ahayd certificate-kii baa lagaa haystay halkan waxaan dul imi certificate balbes copy running marka haddii certificate manual uu shaqeynayo halkaan imaanaysaa waxaad dooranaysaa start certificate-ka ha shaqeeyo oo computerka certificate-ka waxa waa windowga wato certificate okay marka certificate-ka copies-ka ahaa ayaa saa u dooranaysaa marka properties baa sii tegaysaa halka manualkii baa ka qaadaysaa automatically baa dooranaysaa apply baa dhehaysaa okay baa dhehaysaa haddii aad fahmi weysid oo kusoo noqon kartaa properties baa iman kartaa certificateskii waxaad dooran kartaa manual markaad doorato apply okay intaasay kaaga eg tahayba wixii oo dhan inay shaqeeyaan marka service ka shaqeynaya adeegan meeshuu yaalo waa halkan okay cashirkan maxaan ka faa'iidnay marka inuusan shaqeynin kan laakiin aan soo dooranay services halka ay ka shaqeeyaan window uu yaalo softwareadoo dhan meel bay wada fadhiyaan oo laga xukumaa waana services softwareka markuu shaqeyn waayo haddii computerka qaybo ka mid ah uu shaqeyn waayo programmadiisa ay shaqeyn waayaan bluetoothka kale markuu ku shaqeyn waayo blog markuu ka saaran yahay drive-kaasi marka ama uu shaqeyn waayo backup-ka ama markuu shaqeyn waayo background-ka kale waxaa kusoo dhufanaysaa run baa soo tegaysaa oo ahayd meesha baaritaanka ka sameynayso oo aad kusoo qorayso searchinka kadibna waxaa qoraysaa services.msc halkaa waxaan ka faa'iidaysanay inaan halkaas ka saxno software walba nagu jiro sida uu shaqeyn lahaa haddii uu performance-ga shaqeyn waayo iyo hadduu shaqeynayaba halkaasaan ka ogaanaynaa cashirka xiga waxaan ku qaadan doonaa USB inaan soo qaadno aan ka shaqaysiino softwarekan sababtuu u shaqeyn waayena waan soo aragnay hadda oo waxaan nimi run waxaan kaloo nimi services waxaan kaloo nimi services.msc baa dooranay kadibna waxaan la tusay programyada si u shaqeynayaan kuwa manualka ay kuwa automatic u shaqeynaya marka kuwa manual hadduu ku jiro automatic baan ka dhigaynaa kuwa automatic hadduu ku jirana manual baa u bedelay sidaas darteed fi amaan allah wassalaamu calaykum